السلام عليكم وعن صاحبada sharafta leh marka hore jimco wanaagsan saaxibayaal maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo muuqaal aan ku arkay barta YouTube-ka oo ay soo gelisay gabar Soomaaliyeed oo u dabaaldegaysay xaflad 100,000 oo subscribers ah saaxibayaal sida aan wada ognahay Soomaalida iyo waliba ajaanibtaba qofka markuu uu gaaro oo tiro subscribers ah tusaale ahaan 100 200 ilaa milyan waxa ay sameeyaan dabaaldegyo maxaa la yiraahdaa iyo xaflado sida aan wada ognahay Soomaalida intiina daawata barta YouTube-ka qof walba oo Soomaali ah markii uu gaaro tirada 100,000 oo subscribers waxa uu isku dayaa inuu sameeyo xaflad aad u ballaaran taasi uu isugu keenayo dad aad u fara badan oo caan ah isla markaasna uu ku qarash gareynayo lacag runtii aad u fara badan laakiin arintaas arin ka duwan ayay sameysay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Natasha Cabdi oo YouTuberad ah kuna nool magaalada Nairobi ee wadanka Kenya saaxibayaal marka hore waxaan rabaa bal inaan idin daawodsiyo muuqaalka gabadhan ay ku dhigatay xafladda ama farxadda 100,000 oo subscribers kadibna waxaan rabaa inaan bal falcelin ka sameeyo iyo qaabka aan u arkay muuqaalkan runtii markii aan daawaday bal daawasho wacan marka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان أصحابتي المربوطين إذا على ذي كجوكتين وأنيقو أولاشي ناتاشا كسود هذا يوتيوب channel كيغا انتو بدنا حيث فيديونا نسكاقا ودبال تجربتا حفلة ديغا نسكا برا بلا 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 سانا أركيسينا حفلة كسود ديغا ربا واسعنا فاتين هذا وبلابينا دبال ديغينيا بلابينا إن شاء الله saaxibayaal dadka daawadayaasha ah ee YouTube ka daawada waxay isku dayaan qofka markii uu gaarayo tiradaas 100,000 ah inay xasuusiyaan xitaa hadii uu ilowsan yahay ay xasuusiyaan inuu gaarayo 100,000 ayna sugayaan dabaaldega ruuxaas ay taageeraha u yihiin laakiin gabadhan Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Natasha Cabdi waxa ay sheegtay iyadoo sidan ah xijaaban inay doonayso inay dabaaldegto bal aan wada aragno dabaaldega ay sameynayso qaabka uu noqon doono saaxibayaal muuqaalka waxa ay ka bilowday ayaga oo ka baxaya xaafadda ay deganayeen ama guriga ay ka deganayeen Nairobi kadibna ku socdo meesha xafladda ay ka dhaceysay waxaan isku dayaa muuqaalka inaan soo koobo oo muhiimadda iyo maxaa la yiraahdaa halka aan danta ka leeyahay aan hore ka abaaro bal daawasho wacan saaxibayaal sida aad aragtaan wajiyadan quruxda iyo farxadda ay ka muuqato waa caruur agooma ah iyo kuwa waalidkood ay dayaceen oo lagu hayo xarun ku taala section 1 ee magaalada Nairobi gabadhan YouTuberada ah runtii iyada oo sameey kartay xaflad ay isugu yeerayso dad caan ah isla markaana ay farxadeeda halkaas ku soo muujin kartay ayaa waxa ay dooratay in farxadeeda ay kula wadaagto caruurtan agoomaha ah iyo qaarkoodna waalidkood ay dayaceen lagu hayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya saaxibayaal runtii muuqaalkan waxaan u arkayaa ama ku tilmaami karaa mid kamid ah muuqaaladii ugu wanaagsanaa ee aan ku arko barta YouTube-ka saaxibayaal ficilkan ay sameysay gabadhan YouTuberada ah runtii waxa uu fariin u yahay YouTubero badan oo Soomaali ah oo doonaya qaarkood inay dhigtaan xaflado ay ugu dabaaldegayaan tiro taageero ah oo ay heleen saaxibayaal mar walbaba muhiimadda waxa muhiim ah in farxad aad siiso qof aan faraxsanayn inta aad farxad sii lahayd mid asagu awalba farxad haystay oo laga yaabo farxadda aad haysato mid ka badan in uu haysto mar walba waxa loo baahan yahay qofka ka hooseeya inaad fiiriso oo aad gacanta soo qabato si ilaah adigana uu kor kugu sii qaado saaxibayaal muuqaalkan ayaan rabaa inaan soo gabagabeeyo oo waxaan ku soo gabagabeynayaa codka gabadhan oo ka hadashay ugu dambeyn muuqaalkan dhamaadkiisa أصحابي ugu dambeyntii videoga hadii aad soo daawateen oo yaabantiin min subaxdan videoga la soo xiraa waa maxaa isleeyahay
xili dambe imaaday zaid u daalanaa waqti qurux badan markaa la soo qaatay caruurtii aadayna u faraxsanaayeen muhiimadana mar walba farxadda qofka bini'aadanka muhiim ah marka anigana saasaa jeclaystay in xafladeedii iyo dabaaldegayga aan kusoo dhigto meesha xerada agoominta maam Fatima lahaa dad Nairobi joogtid section 1 ku taala haddii aad dibadaha joogtid sidoo kale maam Fatima waxaa wakiil looga soo dhigan kartaa qof meeshan ku jooga waa ilmo agooma ah iyo ku waalidkoodii tuuray meeshaas lagu koriyaa meeshaas wax lagu siiyaa qof maanta la dhahayo wuxuu ku ogyahay oo maxay ahayd mar walba wax siiyo يعني بيل أهان لوسي مجرتو ilma yaryar waxaa jira xataa xafaayadaha laga bedelayo oo zaid u yaryar marka hadaa $100 isaga soo diri kartid hadaa cunno u geyn kartid bisil hadaa u geyn kartid dhar xataa aa xirtay oo ka yar yaraaday waa ilmo u baahan waxun bay u taraysaa